Azerbaijan waxa ay ku jirtaa hanaan casriyeyn ballaaran ah oo ciidankeeda ah tan iyo dagaalkii ugu dambeeyay ee ay la gashay Armenia sanadkii 2020 iyadoo Baku uu ka tagay qaabkii military ee Soviyetka si uu u habeeyo ciidamadooda qalabka sida qaab reer galbeedka ah taasoo dhiirigelinaysa qaab Turkiga. Isbeddelkan ayaa u muuqda laba arrimood oo waaweyn oo ay ugu horeyso kooxda cusub ee Commandoska Azerbaijan oo la sameeyay marka laga reebo dhigooda Turkiga iyo tan labaad waa hubka Turkiga ee Baku ku urursaday saanad military oo ay ugu muhiimsan yihiin Bayraktar TB2 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Qoraaga Fuad Shahbaz waxa uu maqaalkani inoogu waramayaa sifooyinka iyo ujeedooyinka ugu muhiimsan ee isbeddelka military ee Azerbaijan. 5 Oktoobar 2020 markii dagaalka u dhaxeeyay ciidamada Azerbaijan iyo Armenia uu ka qarxay gudaha iyo hareeraha Nagorno-Karabakh, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa mar hore bilaabay in uu ka hadlo dib u habeynta militariga. Wareysi uu siiyay TV-ga dowladda Turkiga ee TRT, Aliyev waxa uu sheegay inuu doonayo in uu dib u dhis ku sameeyo ciidamada Azerbaijan sida uu qabo qaabka Turkiga, laakiin heer ka yar. dib u habeyntani ayaa mar horeba si xawli ah ku socotay muddo sanado ah iyadoo Azerbaijan ay doonaysay in ay ka guurto qaabkii Sovietka ee ciidamadeeda qalabka sida kuwaas oo si weyn ugu tiirsanaa askar tiro badan oo ciidamada lugta ah iyo cutubyo gaashaaman iyo sidoo kale in ay u dhawaadaan qaabka NATO ee xirfadlayaasha ah ciidamada gurguura oo leh tiknoolajiyad horumarsan iyadoo la tixgelinayo in Turkiga yahay saaxiibka ugu dhow ee Azerbaijan. Waa wax caadi ah in ciidamada NATO ay noqdaan tusaale lagu daydo Baku. Taageerada culus ee Turkiga u fidiyay Azerbaijan ee dagaalka kula jirta Armenia ayaa sii xoojisay habdhaqanka sida uu ku sheegay Aliyev wareysigiisii isagoo oo yiri taageerada damiirka ah ee Turkiga iyo wax soo saarka warshadaha difaaca ee Turkiga ee aanu gacanta ku hayno ayaa xoojiyay awoodeena caalamka oo dhan ayaa taasi marqaati ka noqon kara. Ciidanka Turkiga waa ciidanka labaad ee ugu awoodda badan NATO mana jirto ciidan maanta wajihi karta ayuu yiri. Raadraaca Turkiga dagaalkii ugu dambeeyay waxa uu ku dhamaaday guushii Azerbaijan oo ay dib u soo ceshatay dhulkii kaga lumay Armeniyaanku dagaalkii ugu horeeyay ee labada dal sagaashamaadkii waxaana muddo yar kadib uu dardargeliyay qorshayaasha Azerbaijan. Baku waxa uu bilaabay dib u habeen cusub oo militariga oo taxane ah oo ay ku jiraan kordhinta qarashaadka militariga, sameynta cutubyo cusub oo dagaal iyo unug difaac qaran, kordhinta tirada dagaalyahanada ciidamada gaarka ah kuwaasi oo dhammaantooda ah isbeddello loo qaabeeyay qaabka Turkiga. Dib u habeentaas horumarinta degdega ah ee ciidamada gaarka ah waxay u muuqataa inay tahay mudnaanta ugu sareysa. Aliyev waxa uu sheegay in Azerbaijan ay labalaabtay tirada ciidamadeeda gaarka ah kadib dagaalkii Karabakh kuwaas oo ay ku jiraan laan cusub oo ka mid ah ciidamadan oo la aasaasay 2020 kadib oo ah cutubyo loo yaqaano Commandos. Ciidamada gaarka ah waa cutubyo heer sare ah oo loogu talagalay dagaalada caadiga ah ee muddada dheer halka Commandoska loo qorsheeyo howlgallada gaagaaban ee lagu sameeyo xaaladaha cimilada adag ama meelaha buuraleyda ah ee ay adag tahay in la gaaro. Laba astaamood oo ka mid ah dhulka ay Azerbaijan dib ula wareegtay 2020 oo ay ku jiraan gobolada Lashin, Hadrut iyo sidoo kale Kalabjar. Commandosku waxa ay heleen barnaamij tababar oo aad u xoogan waxa ay ku hubeysan yihiin oo kaliya hubka gacanta lagu qaato sida qoryaha shiishka iyo bambooyinka aadka u sareeya waxayna adeegsadaan hubka fudud. Dhanka ciidamada gaarka ah ee caadiga ahna waxa la siiyaa hub culus, qoryaha waaweyn, kuwa bambooyinka gacanta laga tuuro, madaafiicda, nidaamyada gantaalada la qaadi karo iyo sidoo kale qalab kale oo adag. Ilaa hadda Azerbaijan waxay ku dhawaaqday inay dhistay 5 cutub oo ka tirsan Commandoska oo laba ka mid ah ay ka howlgalaan gobolada Hadrut iyo Kalabjar iyadoo aan weli la shaacinin goobaha ay ku sugan yihiin saddexda qaybood ee kale balse waxaan si fudud u qaadan karnaa saddexdaas cutub ee kale. Unugyadu waxay ahaan doonaan meel u dhow xuduudaha Armenia iyo sidoo kale qadka xiriirka gobolada ay maamulaan ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka. Waxa intaas dheer ballaarinta kale ayaa la filayaa. Abdelat Wardiyev oo ah qabiir military oo Azerbaijan waxa uu sheegay in Azerbaijan ay qorsheynayso in ay dhawaan laba jibaarto tirada ciidamada Commandoska iyo kuwa caadiga ah ee ka howlgala gobolka Karabakh dhankooda. Mas'uuliyiinta Azerbaijan ma aysan shaacinin tirada hadda ee ciidamada Commandoska ee dalkooda, laakiin Aliyev ayaa hore ugu dhawaaqay inay hadda yihiin kumanaan. cutubyo ka tirsan Commandoska Azerbaijan ayaa si toos ah ugu hoos shaqeyn doona taliska ciidamada dhulka oo ah talis gabi ahaanba laga soo minguuriyay dhigooda Turkiga. Talisadaasi waxaa la aasaasay 2021 waxaana kursiga hogaaminta ku fariistay sareeya guud Enver Evenediyev oo ka qalin jabiyay Akademiyadda Militariga ee Turkiga.
taliska cusub ayaa isku daba ridi doona dhammaan howlgallada dhulka halkii ay ka ahaan lahaayeen ciidamada guud kuwaasi oo horey u ilaalin jiray dhammaan howlgallada ciidamada ee goob kasta. tan iyo markii la aasaasay taliska ciidanka dhulka waxa uu furay xarun cusub oo talis iyo sidoo kale xarumo badan. jaamacadda cusub ee difaaca qaranka oo hadda la aasaasay bishii Maarso 2022 ayaa sidoo kale dhiirigelisay dhigeeda Turkiga waxaana lagu saleeyay heerka ay dejisay jaamacadda difaaca Turkiga iyadoo ay weheliso dib u habeynta Azerbaijan. Baku waxa ay kordhisay tirada saraakiisheeda wax ka barata Turkiga laftiisa halkaas oo in ka badan 200 oo sargaal ay hadda wax ku bartaan. Kacaanka Bayraktar si kastaba ha ahaatee waxaa jira xadidaadyo saameynta ciidamada Turkiga ee Azerbaijan iyadoo tan iyo markii uu qarxay dagaalkii ugu dambeeyay ee Nagorno-Karabakh ay soo baxayeen wararka ku saabsan suurtagalnimada ah in Turkiga uu saldhig militari ka furto dalkaas. Aliyev ayaa soo afjiray warkaas isaga oo yiri doorashadan weli lagama wada hadlin Turkiga. caqiidada militari Azerbaijan ma ogola in saldhigyo ciidan shisheeye ka samaysto dhulkeeda, balse Aliyev oo hadalkiisa sii wata ayaa albaabka u furay isaga oo leh haddii ay qatari weyne kusoo wajahan tahay Azerbaijan fursadan ayaa ka faa'iideysan doonaa sababtoo ah Turkiga waa xulafadeena. waxaa laga yaabaa in qaabka ugu cad iyo midka ugu caansan ee saameynta Turkiga ee ciidamada Azerbaijan ay tahay hubka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 kuwaasi oo door muhiim ah ka qaatay guushii Armenia 2020. laakiin dabcan ma ahan hubka kaliya ee Turkiga ee ku jira Azerbaijan. Baku waxa uu helay nidaamka dareenka sawir qaade ee Dragoneya, gawaarida gaashaaman ee Cobra 2, nidaamka ridada gantaalada ee TRG-300 ee la hago iyo sidoo kale nidaamka gantaalaha ridada badan ee T-120 Sakarya iyo kuwa kale oo badan. casriyeynta ciidamada Azerbaijan ayaa qayb ka ah ballaarinta militariga ee ballaaran wixii ka dambeeyay 2020. Aliyev waxa uu tilmaamay in halista aargoosiga Armenia ay sabab u tahay. si kastaba ha ahaatee dhiirigelinta ugu badan ee ballaarinta ayaa ah si xumaanshaha guud ahaan ee gobolka Azerbaijan. hadda waxaa jira dagaal nidaamsan oo buuxa oo ka socda Ukraine, dowlad hore oo xubin ka ah midowgii Soviet ilaa horaantii 1990 sida Azerbaijan. marka lagu daro guusha lagu difaaco dalka in ay muujisay ciidamada qalabka sida ee Ukraine oo ay tababareen NATO, waxay u yimaadeen inay muujiyaan muhiimadda ay leedahay dib u habeynta militariga iyo in laga gudbo qaabkii Soviyetka iyo xoojinta dooda kuwa ka dalbanaya gudaha Azerbaijan. daawade fadlan aragtidaada qaybta hoose commentiga inoogu reeb mahadsanid.